adeegyadii uu qaban jiray Hospitaalka Adan International Hospital aanu qiimo dhimis ku sameynay 30% in shaybaadhadii hoos loo dhigay kombiyuutarada kuwii wadnaha iyo kuwii kale sawirada guudba iyo raajitadaba kuwii sawirada sidoo kale waxaan u diyaarinay bulshooyinka la nool xanuunada macaanka dhiigkarka wadna xanuunka iyo kale xanuunkaba inay Isbitaalka Adal International Hospital ee magaalada Boorama ayaa qiimo dhimis 30% uu sameeyay bulshada ku dhaqan gobolka Awdal iyo guud ahaanba Somaliland waxaana faahfaahin kooban ka bixinaya adeegyada loo qabanayo bulshada agaasimaha isbitaalka Dr. Axmed Muumin Cabdillaahi waxaana hadaladiisa u dhignaayeen sidan Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta taariikhdu tahay 16 bisha Shacbaan 1446 waafaqsan 15 bisha 2 2025 waxaan bulshooyinka ugu bishaareynaa in adeegyadii uu qaban jiray Hospitaalka Adan International Hospital aanu qiimo dhimis ku sameynay 30% annagoo uga faa'iideynaa uguna talagalnay inay ka faa'iideystaan bukaanadii nagu xidhnaa iyo kuwa kale ee bulshadaba in 30% aan u diyaarinay ay ka mid yihiin shaybaadhadii hoos loo dhigay kombiyuutarada kuwii wadnaha iyo kuwii kale sawirada guudba iyo raajitadaba kuwii sawirada sidoo kale waxaan u diyaarinay bulshooyinka la nool xanuunada macaanka dhiigkarka wadna xanuunka iyo kale xanuunkaba inay u sameynay bushqad shaybaadha iyo kombiyuutarada lagu baadhayaba haddii kuwa wadnaha tahay haddii kuwa uurku jirta la saara tahay haddii kuwa kale ee wadnaha loo isticmaalo tahay oo kala duwan iyo raajitada guudba iyo shaybaadhadaba bushqadaasoo inay ka faa'iideystaan 30% hoos loogu dhigay tahay sidoo kale waxaan bulshada ugu bishaareynaa in qaliimada guud iyo kuwa jajabka 50% aan hoos ugu dhignay si loo uga faa'iideystaan mowsimka khayrka qaba ee bisha Ramadaan ee nagu soo socda kaasoo dadkiiyaga macaanka iyo dhiigkarka iyo wadna xanuunka iyo kale xanuunkaba qabay ay u baahan yihiin xaaladooda caafimaad si dhow in loo socdo si ay si caafimaad qabta ilaahay baa caafimaadka bixiye ay yani ugu diyaar garoobaan bisha barakaysan ee Ramadaan waxaan bulshada ku waaninaynaa oo yani lana socodsiinaynaa inay aad iyo aad uga faa'iideystaan adeegyada hospitaalku bixinayo hospitaalka oo yani ay ku joogaan dhakhaatiir takhasusad kala duwan leh oo ilaa 8 xanuunada guud iyo wadnaha xanuunada ku dhaca ciyaalka iyo daaweyntooda xanuunada dumarka iyo qalliinamadooda xanuunada ku dhaca murqaha iyo jajabka iyo xanuunada afka iyo ilkaha qaliimada guud oo noocyadooda kala duwana iyo xanuunadii waxaan ka maqnayn indhaha waxaan bulshooyinka markaa ugu boorinaynaa inay adeegyada ka faa'iideystaan si xaaladooda ay ula socdaan waxaa kaloo ka faa'iideysan kara jaaniskan maadaama bisha Ramadaan iyo si guudba mar walba aan u baahannahay inaan caafimaadkeena aynu eegno oo hay'adaha qaabilsan caafimaadka adduunku mar walba ay yiraahdaan 6 bilood baad mar iseegtaan in adeegyada la jabiyay ay ka faa'iideystaan oo isa sii eegaan bisha Ramadaan horteed insha Allah taala adeegan wuxuu ka bilaami doonaa bari oo bisha Shacbaan tahay 17 1446 bisha kalena ay ku beegan tahay 16 bisha 2 2025 adeegyada in laga wada faa'iideysto oo ilaa soconaya bisha Ramadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warbaahinta Cishqi TV Boorama